السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج كيني محي كولتهاي. سورة العاديات وصورة كوبان أو كوبان كوبيت بن آيدود. إلهي وحوقم مقعدري فرسكا أما فردها أرديسا وفي عربي وحلل العاديات وفردها حوق أرديسا سي أورالي قليسو فرس ودها وتفرسكاس. سورة العاديات waxay ku hordhigaysaa muuqaal aad u cajiiba iyo message bay kuu soo diraysaa ka saameyn weyn rusaas qalbiga lagaaga dhufanayo. سورة العاديات waxay ka sheekaynaysaa ama ay ku weydiinaysaa noocyada dadka aad tahay ma nooca markasta ilaahay u mahadnaqa nimcada ilaahay farabadan xasuusanaya ee markasta niyada ku haya mise waxay tahay bini aadamka wanaaga dafira iyo nimcada dafira iyo fadliga ilaahay ana xasuusan inagoo ka samaysanba fadliga ilaahay iyo naxariisteena min cagaheena ilaa madaxeena. laakiin farduhu waa nooc qura waa nooc u mahadnaqa nimcada markasta. suurat alcaadiyaat waxay ka hadlaysaa ama ina hordhigaysaa muuqaalka faras dagaalamay oo dagaalkii ku jira. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alcaadiyaati dabxa waxa weeyaan faraska xoogu ordaaya daraadda orodka farabadanee xoog u ordaayo nakhaskiisa iyo codka nakhaskiisa iyo laabtiisu uu xoog u sareeyo. dabxan waxa weeyaan nakhaska faraskaas markuu ordaayo weeyaan. almuuriyaati qadxan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay daraadda xooggaas iyo xamaasadaas uu faraskaas u ordaayo markii cagtiisu ama lugihiisu uu ku dhifto dhagax yaro meesha yaala sharaarad iyo naar baa ka baxaysa. فالمغيرات صبحا وحو إلهي سبحانه وتعالى وجدا فرس كاسو دقالك قور صبح دو كوك الله او دقال ما هميد عاجسة وميد جيسي وانا بقن وقور تشوغا دقالك. فأثرن به نقعا سبحانه وتعالى وحو كليه هي فرس كاسو مركو أردايو دراد حماسدي قوة جيسي نمد كوشرتا بور بدن يسيق بدن أيو ككعين يميشو تاغين هي. فوسطنا به جمعا سبحانه وتعالى وحليه هي دحدا دقالك أما برتنكيس أيو تاغيني وكدقالاميا ودنعيد ومدوركايو فرسكاسو مبقايو ما هفولي وجيسي دنعيد ومدوركو ودحدا أيو كدقالاميا ونفتيس مهلكدا وودغايا ونفتيس رصاصة ودغايا. فرسكاسو دراد نينكا وضا أما فرس وضها cuntadiisa iyo biyihiisa ka mas'uula siinaya uu naxariis uu ka arkayo ayuu abaal marinayaa faras wadahaas oo dagaalka u galay uu dagaalamaya isagoo aana baqaynin. taasuna waxa weeyaan wanaaga farabadan uu ka arkay faras wadaha ayuu doonay inuu abaal mariyo. laakiin subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi aayadda ku xigta ina alinsaana lirabbihi lakanuud yacni macnaheedu waa maxay bini aadamku wanaaga wuu dafiraa naxariista farabadanna wuu ilaawaa. markii dhibaata ku dhacdana wuxuu xasuustaa mashaakilkii dhibaatadii oo nimcada farabadani aan la tirin karin ee ilaahay uu siiyay wuu ilaawaa. laakiin faraskaasu lamid ma aha bini aadamka isagu daraadda cuntada yar biyaha yar uu siinayo ninkaasu ayuu daraadiisa uu diyaar u yahay inuu naftiisa mahlakad iyo dab uu ku tuuro. laakiin ilaahay bini aadamku markuu sida ugu abuuro caloosha hooyadii ayuu biyihiisa iyo cuntadiisa iyo oksijiinkiisa iyo nakhaskiisa ilaahay uu u soo dhiibaya. markuu u soo baxana nolosha isagu waxba garanayn ayuu ilaahay ilaalinaya oo daryeelka naxariista ilaahay dhinac kasta ay ka taalaa wuu weynaanaya. hadduu xanuusto ilaahay baa shaafinaya hadduu dhibaato galo ilaahay baa dhibaatadii ka saaraya hadduu murugo arko ilaahay baa ka farxinaya haddaa la dhibo ilaahay cadowgiisuu jabinaya ilaa intuu weynaado markuu weynaadana shaqo buu siinaya cilmi buu siinaya arsaaqad buu siinaya ubad buu siinaya hadhowtana cibaadada yare fudud iyo salaadiisa yare basiidka ayuu ilaahay ka aqbalaya jannada gelinaya. haddana waxaasoo dhan bini aadamku nacamkaasoo dhan wuu ilaawaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhowtana wuxuu yidhi wainahu calaa daalika lashahiid macnihii waa maxay bini aadamka laftiisa iyo markhaati ka naftiisa. وهذا ما أنت لقول وراق قرن نمعدو إلهي كسيي ما كوبي كرو وشيء وقرنا يعني نمعدا فربدن إلهي وسيي. هذا بقى إنك يا فرسك مركز نسبربر دقنو كيبا نمعدا وناك حسوستا مركزتا حسوسو نمعدا إلهي. سورة العاديات وحويا تصالات وعجيبة وكو حسوسين مركزتا وناك لقو فرا أما وناك لقو قبتو إنا ند إلاون. هذا بقى كورا وناكا أنا لترين كرن إلهي وإنسيي.
سورة العاديات وسورة كوبان أنا حفظنا وأن كنت كنا ومركز أنا حسوسنا إن معدة فربدن إلهي ونسيي وأن نقولنا سيدا فرسك وأن نراهن الحمد لله. إذن كان محايدين لطهي ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.